محمد سليمان waxaan ka hadlayaa ninka waalan ee la sheegay dab casar ee la leeyahay ninkaas waa anigu waxaan u arkaa inuu xanuunsanayo qof xanuunsanaya oo xagga maskaxda uu yahay waayo wuxuu ku hadlo qof ilaadan kuma hadlo mar haddii Soomaaliland yimi oo isagoo nabad qaba ka tagay haddii lagu soo celiyay Djibouti ay ku soo celisay waxaad ciidamada booliskuna xabsiga u taxaabaan xabsiga Mandheerana inta la xukumo la geeyo intuu nool yahay xabsiga Mandheera lagu hayo ama ilaashka sahan laakiin in meel kale la geeyo ma ahayn ninkaas maadaama in badan xumaanta ka shaqeynaya Soomaaliland dawladda maqadiska ee barakeysan Soomaaliland waxay ahayd in la xidho oo injirtu way ku gasho Mandheero maadaama uu soo galay dalkii waayay inta madaxdeeda caayay waxa weeye go'nistaageeda caayay maadaama uu soo galay dab casar in xarigu ku raagaabahay maadaama uu dhoofay oo tagay Djibouti la soo celiyay intii bil loo celiyay ma aaminsaneyn ninka ilaashka saan laga xidhaabay dawladdu ay ka bixiso wixii bajada asalaam horta ninka odayga magaciisu in badan baynu ka aragnay media laakiin haddaad inta xun weliga adeegsatid meel xun bay kula gashaa marka aanu shakhsiyan waxaan uga digayaa in afxumadu nabad way ka kaxaysaa colaadna wax kaaga ma tirto marka wax ka badan baad qaban kari lahayd intaad ku meeraysan shakhsiyad dawlad iyo ummad wax qabsato ka uu nacaydo oo aad mar walba hadal hayso marka inta ka badan ma ku waanaya wassalaamu calaykum yahay waaniyo dardar waxaan u darayaa inta wariyaasha u soo dacwoonsay isagana waxaan leeyahay ninkan khuseeya maaha ninkan qarankii Soomaaliland meel kaga dhacay haba noqoto haddana taliyo tusaale waxaan leeyahay hadduu mar dambe dalka dib ugu soo noqdo in abaalkii laga mariyo waxna la tuso ninka dambe isku day inuu qaranka Soomaaliland meel kaga dhacna abaal iyo 10 ay u noqotay intaas waxaana leeyahay waanaha ku noqotay intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayga waa Jaamac Maxamed runtii horta waxaan ahay dadka page-kayga ugu jira Facebook dab casar runtii horta waxaan hadii la buunbuuniyana wax weyn bay noqdaan hadii la yareeyana wax yar bay noqdaan horta sheekada waa la buunbuuniyay runtii wax laga soo qaada ma ahayn runtii shakhsi wuxuu ahaa TV-gii waxaan ku soo shaabaxay ma ahayn shakhsi ama wax marka ninkan CV-giisa marka la eego ninkan wadaad buu ahaan jiray marka adu wax yar stress yar ba ku dhacay marka ninkan wuxuu ku nafisaa Facebook-an markuu ku hadlayo kaliya buu nafisaa marka in la eego oo wax qiimo loo sameeyo ama la xidho ma ba ahaynba hadii la garan waayo in kaliya siyaadadu iyo su'aalo la weydiiyo ninkaas lagu sii daayahay in laakiin bulshada loo soo bandhigo oo TV-da loo sheego oo in la xidhay loo sheego oo taliyaha ciidanku ka hadlo runtii wax la qiimeeyo ma ahayn waxaan u arkaa fikir qaldan runtii haduu yimaado haduu soo noqdaba waa in priority-ga la siinin oo waxba laga soo qaadan sheekadiisa adamka ilaahay wuxuu ka xishoodo binaadamka ilaahay wuxuu ka xishoodo ayuu ka xishoon waay waa ninka yiri khamriga iyo beentaan ugu jecelahay adduunka waxa taa ka daran inaan Soomaalidu iska heesaysa halka ayuu oranayaa ayuu si xun u caayaya waxaan afkaaga soo marin karin qof kastoo binaadam ah waxa uu ka oran jiray wax yaqyaqsi ayahay marka dhaqankaasi xun ee uu yeeshay ayaa lagu dilayaa ama wax lagu yeelayaa ilaa uu dhaqanka bedelana anu waxba ka baqaya in dhibaato ka weynaba u timaado marka waxa weeye qof walba wuxuu isagu kasbado buu helaa anu waxaan qabaa kama naxaya inuu dilistiisa haddii xataa kaw lagaga siinayo waayo waxa weeye afkiisa iyo carabkiisa ilaashan waay inta hadduu ilaashan waayana isaga yaqaan bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cabdisamed Axmed Diiriye waxaan ka mid ahay ardayda Soomaaliland waxaan ka hadlayaa arrinkan ninkan dab casar waxaan leeyahay ninkan dab casar waa nin maxay wadankeena dhaqan xumo ku haya waa nin keenaya isirnacayb iyo kala fogaansho qaranka Soomaaliland waa nin aflagaado ku haya xukuumadeena madaxweynaheena anigu waxaan ahay dadka ka soo horjeeda waxaan leeyahay xukuumadda iyo dadweynaha reer Soomaaliland inay meel uga soo wada jeestaan ninka iyo arrinkiisa ninkana sida ugu dhaqsaa badan la weyn dawladdu jawaab culus ay uga bixiso intaasaan ku soo kooyo salaam magacaygu waxa weeye Ismaaciil Nuux Jaamac waxaan ka hadlayaa ninka dhaqanka xun ee dalka soo galay ee la yiraahdo dab casar waxa la yiraahdaa dab casar dilka waa nin waalan iyo anigu marka hore waxa kala garan waa nin waalan yahay iyo nin wiil qaba yahay markaas daraadeed waxaan leeyahay ninka mar haddii dhinaga mastaafuriyo waa nin waalan ilaahay ha dhaafiyo yaana noo soo noqon magacaygu waa Khalid Xuseen Ibraahim waxaan halkan cambaaray kulul dhaka looga tooraya dab casar kala waa nin waalan fadeexad baan wadanka u yimid laakiin waxaan ka xunahay dadka hilibka ka raacay ee isagoo hoteelka ku jira lagu dhacayo lahashada Soomaaliyeed ma taageersanahay ee u sacabtumayay ee hilibka ku faraxsanaaba diidanay anigu isaga ma diidinba
kaasaan diidoo ka booday nimankaa kawdhe cabdimaalig coldoonnimogii wixii soo maray waa kii ka gaashaantay yidhi anuu minaadeer fadeexaynun mooyaan waxuu kuma qaban karaya buu yidhi markii la xidhay kawdhe markaa anuu waxaan leeyahay dabcasar waa nin waala ilaahay bayna dhaafiyey wuxuu ahaaba salaala xasan magacayga waa wiil cabdi jaamac waxaan ka mid ahay dadweynaha degan magaalada hargeysa haddaanin dareenkayga ka dhiibto arrinkaa ninkaas dabcasar la yidhaahdo waxaan leeyahay horta markiisa horeba marka horeba qalad bay ahayd marka horeba qalad bay ahayd inuu waddanka yimaado dawlad baa ka jirtay maamul baa ka jiray dadku inay markii horeba horta dawladdu ninkaas soo daysaa qalad bay ahayd laakiin mar haddii uu soo galay oo uu yimid oo waddankii loo oggolaaday in aayarun la masaafuriyey ahayd in la xidho in la buunbuuniyo inuu hargeysa layf ku galo in mar haddii la soo daayay dhaqdhaqaaqiisa la kaantaroolay ahayd ciidamo loo sameeyo si asluub leh uu waddanka u joogo laakiin isagoo imminka la xidhayo la garaacayo ayuu ciidankii isagoo arkaya layf ku galay marka anugu waxaan qabaa ninkaasi qarannimadii somalilan ilbaxnimadii somalilan dawladnimadii somalilan sharaftii somalilan intaba meel buu kaga dhacay waxaana mas-uul arrintaa ka ah xukuumadda maanta joogta annagu dabcasar ma haysanno isagu markiisii horeba nin baxaayo uu ahaa muu ahayn shakhsi wanaagsan shakhsi ceebaysan buu ahaa shakhsi afxumo ku caana buu ahaa shakhsi reeriye qabyaaladun ka shaqeeya buu ahaa laakiin soomaalidu waxaa tidhaha geel duq baa loo tumaa arrintaa waxaa u qoolan maamulka maanta jooga ayaa arrintaa u qoolan iyagaana mas-uulka ah asalaamu calaykum caalamiin haddaan ra'yigayga ka dhiibto ninkan dabcasar lagu sheegayo waddanka soo galay anigu ninkaa waxaan u arkaa nin dee waalan oo maskaxdiisu baanay caadi ahayn markaa ficiladiisii iyo wuxuu samaynayo iyo hadallada ka soo yeedhayaan arkay waxaanay ahayd ninkan dee waa la yaqaanay oo adduunkao dhan ugu yaqaanay dee markii eeriboodka ka soo degayey inay xukuumaddu qabato oo ay xidhabay ahayd sidaa darteed haddii maantale laga masaafuliyey waddanka waxaan u arkaa inay somalilan iyo dawladduba ay ku saxan yihiin dee ilaahay baanayna dhaafiyey ninkaasi nin rabshado wadaa oo qabyaaladaysta oo suna oo dalka lagu soo tuuray baan u arkaa ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa dib dambana dalka yuu ugu soo noqon haddii uu eeriboodka dib uga soo degana ha la xidho ha lagu duuduubaan lay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan ka dhiibto fikirhaan ninkan dabcasar rur ahaantii waxaa weeye nin la sii buunbuuniye maaha nin miidhiya laga soo daaye maaha nin dadku sida loo sii hadalhayo ee loo buunbuuninayo rur ahaantii aan waxaaban u arkaa nin aan maskixiyan dhammaystirnayn haddayo jeer waa nin cayda reeraha qabaa'ilka taraabaliisamka waxyaabaha foosha xun leh waa nin hadayo jeer waxaa ku nabadii caanamaalay ma aha in la buunbuuniyo in la xidho ma aha in dee waxaan kuudhi laga soo qaado arrinkiisa wax ka soo qaad mu ahayn sababtoo ah nin maskixiyanba dhammaystiranba ma aha ninkan lagu leeyahy waa dabcasar anugu xaggayga waxaan odhan lahaa ninkaas waa nin waalan inta somalilan in dee ciidan iyo taliyo iyo waxaa loo diro mabay haynba iyo in dee miidhiya laga soo daayo waxaan u arkaa nin waalan dee waddanka yimi oo hadday jeer qabaa'il taraabaliisam kolba reer iska caaya kolba qof iska caaya shakhsiyaad gaara iska ataaga oo silaf ataa ku sameeya oo dadka dawladda xukuumadda ciddu doona caaya qabaa'il iska caaya markaa ninka hadalkiisu wax ka soo qaad mu ahayn in meelaha cilaajada iyo meelaha la geeyaabahayd caalamiin haddaan ra'yigayga ka dhiibto ninkan dabcasar lagu sheegayo waddanka soo galay anigu ninkaa waxaan u arkaa nin dee waalan oo maskaxdiisu baanay caadi ahayn markaa ficiladiisii iyo wuxuu samaynayo iyo hadallada ka soo yeedhayaan arkay waxaanay ahayd ninkan dee waa la yaqaanay oo adduunkao dhan ugu yaqaanay dee markii eeriboodka ka soo degayey inay xukuumaddu qabato oo ay xidhabay ahayd sidaa darteed haddii maantale laga masaafuliyey waddanka waxaan u arkaa inay somalilan iyo dawladduba ay ku saxan yihiin dee ilaahay baanayna dhaafiyey ninkaasi nin rabshado wadaa oo qabyaaladaysta oo suna oo dalka lagu soo tuuray baan u arkaa ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa dib dambana dalka yuu ugu soo noqon haddii uu eeriboodka dib uga soo degana ha la xidho ha lagu duuduubaan lay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan ka dhiibto fikirhaan ninkan dabcasar rur ahaantii waxaa weeye nin la sii buunbuuniye maaha nin miidhiya laga soo daaye maaha nin dadku sida loo sii hadalhayo ee loo buunbuuninayo rur ahaantii aan waxaaban u arkaa nin aan maskixiyan dhammaystirnayn haddayo jeer waa nin cayda reeraha qabaa'ilka taraabaliisamka waxyaabaha foosha xun leh waa nin hadayo jeer waxaa ku nabadii caanamaalay ma aha in la buunbuuniyo in la xidho ma aha in dee waxaan kuudhi laga soo qaado arrinkiisa wax ka soo qaad mu ahayn sababtoo ah nin maskixiyanba dhammaystiranba ma aha ninkan lagu leeyahy waa dabcasar anugu xaggayga waxaan odhan lahaa ninkaas waa nin waalan inta somalilan in dee ciidan iyo taliyo iyo waxaa loo diro mabay haynba iyo in dee miidhiya laga soo daayo waxaan u arkaa nin waalan dee waddanka yimi oo hadday jeer qabaa'il taraabaliisam
kolba reer iska caaya kolba qof iska caaya shakhsiyaad gaara iska ataaga oo silaf ataa ku sameeya oo dadka dawladda xukuumadda cid doona caaya qabaayil iska caaya marka ninka hadalkiisu wax ka soo qaad mu ahayn in meelaha cilaajada iyo meelaha la geeyaaba ahayd